بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أفهيانك يلها قرب صريح حسن محمود حسن عامية كمان مد إسلام كا والسلام يا حق السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت هتكذب كمان مد إسلام كا وحلا حي خبزان كريم يا هي خير كذا هي نفسي قبل ما يكون فيها توجي بدنا يكون فيها يا هي نقطة ما يستوى. إنت هتكبعدي وحن كهض ضياء hawshii iyo nabadayntii laga waday shidan oo ugu horeyn uu hogaaminayay Sudan Cabdisalaan iyo ergooyinkii ku heliyay oo loo qabtay muddada 40 casho ah. hadda waxa ka dambeysay muddo kooban oo dhowr iyo 20 casho ah. muddada kooban oo hadda ka dambeysay caqad baa heshiiska la xidhay wuxuu ahaa in 40 casho ay xinaato nabadaasi waxlaaba oo dhaqdhaqaaqo ciidan aanay iman wax qorshe ah oo kale oo dhismaha in la sameyn meesha inta kala maqnaado hawshaas way jirtay. annaga xaggeyaga beeshayada garab sare waan xakameynay waxaan ku xakameynay wax dhismaha iyo wax ciidana iyo wax abaabula iyo wax gaadiida iyo mid kale midna inaan gelin. annaga sidii bay nabadda nooga xidhnay laakiin darabkii kale ee beesha habaryooli sidii bay hawshii u socotaa xaggoodiina nabadooda ka jartay. taa wax xaqiiqdeeda ah oo aan ku cadaynaynaa ciddii doonaysaana inay soo xaqiijiso ay arkaysaa. xaruntii lagu ballamay ama goobtii lagu ballamay ee shidan ee lagu kala maqnaado abaabul gaadiid iyo abaabul ciidan ba intay hadda hawsha inayd ka socotay dhismihii baa ka socda. wixii hawlaha oo dhan sidii ay ugu socdaan waxa laala wax iska taagay meesha ma jirto. gaadiidkii badda oo badda la soo geliyey oo qaybtood ayba socdeen oo tageen ilaa geelweyteed baa jirta oo dhacday. qaybtoodna ay xaruntii joogaan halkii masaajidkii meeshii masaajidka ay ku sheegayeen baa xawey baa la keenay gaadiidkaas oo gaadiid ciidan oo hubaysan baabuurtiilka ah waa la keenay. hawshaasi sidaasa xaalkeedu yahay. waxaan ogeysiinaynaa ugu horeyn Sudan Cabdisalaan iyo intii la halmaashay siraynaa hawshaas inay jirtay. muddadiina maanta ay 21 casho tahay 19 cashana hadday muddadii la qabtay. idan hawshaasi 19 casho haray ku sameynay ay ka horeyso in howlgallado iyo dagaal ka dhaco goobta iyada ah. taana waxaa dembigeeda shirinteeda iyo wixii ka yimaada mas-uuliyadda lagala xisaabtamaya beesha habaryooli oo sidii u fadhida ciidanna soo hubaysay oo keentay gaadiid badeed soo hubaysay oo keentay gaadiid badeed oo tigirka ah keentay. waxa weeya meesha dagaalkii aan qarxin mooye wax kaloo ka harin ma jirto. waxaan ummadda u sheegaynaa ama inta hadda ergada ah hogaaminaya aan u sheegaynaa meesha inaan waxba ka xidhnayn. wax ka xidhan meesha ma jirto. waxaan leenahay haddii meesha la dabaynayo oo sidaa hawsha loogu ballamay loo dabaynayo in si dhaqso ah xaqiiqa raadin loogu dilo loo tago lasoo taabto meesha wax ka jiraan nalala eego hadalka aanu leenahay oo nalala hubiyo. annaga hawshayadii sidii bay u xakamaysan tahay. barnaamijkii ciidan iyo barnaamijkii gaadiid waxayagii sidii bay u xakamaysan. laakiinse xagga kale waxba kama xidhna. mar haddaan xagga kale wax ka xidhnayn si dhaqso ah waxaa u imanaysa in dagaal meeshaa ka qaso. dagaalkaa ka qaxayana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya beesha habaryooli. ciddii maamulku lahaydo awal bedelada ka riixaysay hawsha tan fidnada ah ilaa way ku jireen qolada maamulku ama Ismaaciil ha noqoto ama ciddi kale dowladda ha noqotee ama ciddii erga ahayd oo ku sika ahaato ama Sudan iyo inta hawsha kula jirtay oo caqadka iyo ballanka xidhay iyagu si wanaagsan bay hawsha u dhameeyeen. hawshaa gashay waxaan ogeysiinaynaa oo aan ku celinaynaa meesha inaan waxba ka xidhnay. meesha wixii la sugaaba waa dagaal. hadalkan ka hadlaynana waa kaa. waxa hadalka inaan ku soo noqono oo ku celino nagu galbeeno waa kaas. waxa weeye waa afeer. saasaan afeertaan iminay. allahuma balaqtu hadda wixii eed ka yimaada meesha la wadaagi maayo. cid baa qaadanaysa halala socdo. haddii xaqiiqa raadin la rabana waxaan jecel lahay ergadii sudaanku uu kowga ka ahaa iyo ciddii kale oo hawsha kula jirtay inay tagaan goobta waxa sila soo xaqiijiyaan. waxaanu ka hadlayna nala arkaan. annagu waxa weeye fidno ma rabno laakiinse kalif
baa meesha ka socda iyo dhibkii hawlba waxa weeye ka cusub oo ka timi waxaan leenahay hawsha haddii la doonayo in wax laga qabto si dhaqso ah ha loo tago ha loo soo xaqiijiyo haddii aan la soo xaqiijin wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda anagu ma wixii hore u dhacay oo dil dhacay oo kasaali dhacay oo gubis dhacay oo dhib dhacdayna sidii bay u taagan tahay tanna way labaynaysaa waxa weeye qaladka ma qaadan maayo cidiida baa qaadanaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu